moolkii ugu weynaa Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho laga furay waxaana ka qayb galay ganacsato iyo dadweyne fara badan iyadoo munaasabada ay ka dhacday gudaha Muqdisho Mall oo ah mool si casri ah loo dhisay oo la saanqaaday moolalka casriga dunida. ganacsada Cabdullaahi Cali Adoon waa 40 jir maalqabeen ah oo dalka Soomaaliya ka hirgeliyay mashaariic aad u fara badan oo ku jira Muqdisho Mall. waxa uu caan ku yahay hirgelinta iyo sameynta fikradaha horumarineed ee Soomaaliya. dhismaha Muqdisho Mall waxa uu soconayay muddo 2 sano maanta ayaana la soo afmeeray oo la furay waxaana uu bartamaha kaga yaalaa suuqa weyn ee Xamarweyne. ugu horeen injineer Cali oo ku hadlaya magaca milkiilaha Cabdullaahi Cali Adoon ayaa dadka ku soo dhaweeyay moolka Muqdisho Mall. anigoo ku hadlaayo magaca milkiilaha Cabdullaahi Cali Adoon iyo gurubkiisa waxaan ku soo dhaweynaynaa Muqdisho Mall suuqan waxaan rajaynayaa inuu noqdo suuqyo badan oo lagu daydo oo la mid noqdo kuwa adduunka la tartamayo. intaana la furin Muqdisho Mall ka qaybgalayaasha xafladda waxay soo dhaxmareen gudaha Muqdisho Mall dhismaha uu ka kooban yahay. odaygan Soomaaliyeed waxa uu ka hadlayaa dareenkiisa iyo Muqdisho Mall isagoo ku dhex jira dhismaha Muqdisho Mall. والله waxaan u aragnaa dhismahan dhismo aad u wanaagsan oo ku soo kordhay bilicda magaalada Muqdisho aadana waxaan ugu mahadcelinaa Ilaahay mahadda iskale bacda ثم waxa iskale kambanigii ka shaqeeyay inay bilicda ku soo celiyaan meesha oo dhowr sano ka hor ahayd meel qashin qub ah. munaasabada lagu furay waxa taariikhda iyo heerka dhismaha uu moolka soo maray injineerka fuliyay dhismaha injineer Jaco oo u dhashay wadanka Hindiya oo taariikh fac weyn ku leh wadamada kala adduunka oo sidaan oo kale moolal casri ah dunida ka dhisay. This mall is a phase 1 of this project. In this mall we have 76 shops with different sizes, different square meters to cater customers' requirement. We have banking facility, we have a coffee shop in ground floor, we have a food court on second floor with a facility of 7 restaurants, different type, different food. And we have a children's play area in the same level in the food court. Muqdisho Mall waxa uu habraac u yahay hanaanka dhaqaalaha furan iyo maalgashiga waxaana uu astaan u noqon doonaa in dadka ay ku dhiiradaan horumarinta dalkooda waxaana uu dhiirigelin doonaa qulubta shacab weynaha Soomaaliyeed ee adduunka. gudoomiyaha rugta ganacsiga Maxamuud Cabdikariin Gabeere oo furitaanka Muqdisho Mall ka hadlaya ayaa u mahadceliyay ganacsadaha hirgeliyay Muqdisho Mall isagoona ganacsatada kale ugu baaqay in sidaan oo kale ka qayb qaataan horumarinta dalka. intaas kadib waxaan rabaa inaan si kaliya laaba ugu mahadceliyo shirkadda Somali Mall hadda halkan ka furtay oo hogaaminayo Cabdullaahi Cali Adoon oo aan dareemi karo sida hadaba laga dhawaajiyay maalgelinta quruxda badan leh oo uu halkan ku sameeyay oo waliba aad u jeedaan inuu caalamka la jaan qaadi karo sida uu eg yahay oo aad u moodid inaad joogtid wadamadii hore u maray oo qaasatan meelaha caalamiga ah oo kala soo dhisan yihiin iyo jarjarooyinka iyo wiishashka iyo si soo socdaan waxaa la qaadan karaa inta aad u mahadsan yihiin ganacsatada ku dhiiratay inay maalgeliyaan. waxaan kaloo rabaa inaan ugu baaqo ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibad waxaa la rabaa inaan ku dhiirano dalkeena inaan maalgashano inaan hantideena u horno inaan anagu bilaawno. ajnabiga waa loo baahan yahay laakiin ajnabiga ka hor waxaa la rabaa inaan anagu bilaawno inaan maalgashano oo dalkeena anaga aan ku soo dhiirano. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sameeyay 5 sano ugu dambeysay horumar dhanka dhaqaalaha taas oo muujinaysa ganacsatada Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan in dhaqaalahooda ay gashtaan gudaha dalka Soomaaliya. Zikri Maxamuud, Universal TV, Muqdisho.